munaasabadan ballaaran oo soo agaasimay dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa ujeedadu ahay sidii loo dhiirigelin lahaa ardaydii wax ka baratay dugsigaasi farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa kuwaasi oo waqtigan qaarkood ay ka howlgalaan shirkadaha kala duwan ee dalka halka qaar kalena ay sii wataan waxbarashada iyo horumarinta noloshooda waxaana munaasabadaasi faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo sameeyay maamulaha dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa Sidiiq Cawil halkan ardayda ka qalin jabisay sanadkii 2020 sidii noo caadada ahayd martidan sharafta leh qodobkan uu soo marti qaaday waxa weeye iskuulkan farsamada gacantu wuxuu leeyahay xirfad ka duwan xirfadaha kale dugsiyada sare Soomaaliland xirfadaasina waxay tahay xirfad gacmeed shaqo gacan laga qabanayo oo bisil oo ardaydu sida ogtihiin marka ay muddo wax soo dhigtaan finalized waxa la yiraahdaa jiro imtixaan baa laga qaadaa imtixaanka laga qaadayaa waa mid qoraal ah inta badan oralku inagu yar yahay kadibna ardaydu way gudubtaa markay gudubtana halkay tagaan waynu naqaanaa laakiin dugsiyada farsamada gacantu waa shayga kaliya ee aynu maanta hayno ee ina anfici lahaa laakiin ay faham darradu jirto marka aan leeyahay faham darradu jirto macnaheedu waxa weeye waxa xaqiiqo oo dhab ah imika dufcaddii ka horeysay iyo tii ka sii horeysay ardaydii halkan ka baxday mid ka mid ah wuxuu ka bixiyaa fiiga jaamacadda walaalkii oo ka weyn 6 sano ama 7 sano reerkana isaga masruufa faraqa u dhaxeeya muxuu yahay dee wuxuu yahay nin la korinayo koraya oo halku ku kaalin qaadi lahaa inuu isweydiinayno iyo nin koriinkuba ku yaraayo kobcay oo munaafacaadkiisa halka ka muuqdo marka imika xilligii dadka aynu ugu yeerinay way dhaaftay yaanu lahayn dugsiyada farsamada gacanta gala idinkaana nooga markhaatiya in ardaydii hore ay qaadateen qayb imika joogtay kuwa maqaniba ayin niman hawl galay oo tabcay oo iyagoo yar dadka iyo dalka iyo diinta wax u talay geesooda waxaa halkaasi ka hadlay Cabdifataax oo ka socda shirkadda Sunpower oo ka waramay sida ardayda ka soo baxday dugsigaasi ay uga shaqo galaan goobaha ganacsiga iyo sidoo kale Nuur Cabdi oo ka socda hay'adda Save Children oo ka waramay muhiimadda laga leeyahay in la soo saaro daayar xirfado baratay 10 arday wada shaqo gelinay shaqadiina way ku jiraan imikana diyaar baan u nahay Sunpower ahaan waa diyaar baan u nahay waanu gacan qabanaynaa wixii xirfad ka dhimanna annaga barno iskuulka kala sii wareegay mahadnaqa iskuulkana waanu ka gudoonay anagu markaanu programada noocan oo kale aan ka fikirayno kama fikirnaa arday shaqo geyno ama shaqo abuur loo sameeyo laakiin waxaan ka fikirnaa inuu wadanku horumar gaaro macnaheedu waxa weeye ardayga maanta wax bartay wadankii wax ku soo kordhinaya sawirka guud ee noo muuqdo ay tahay noo muuqdaan waxa weeyaan waa kaas weeyaan Professor Cadaad oo ku hadlay afka waalidiinta ayaa isna bogaadiyay mas'uuliyiinta maamulka iyo wasaaradda waxbarashada ee ku hawlan soo saaridda daayarta farsamayaqaanka ah ee daayarta baratay xirfadaha kala duwan waxaana professorku si diiran u soo dhaweeyay ardaydii qalin jabiyay qaybaha kala duwan ee dugsigaasi ugu dambeyntiina waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Bakar Maxamed oo ka warmay ahmiyadda ay leedahay farsamada gacanta iyo waxbarashada farsamadu waxaanu agaasimuhu tilmaamay muhiimadda ay xukuumadahan iyo wasaaradahan siinayaan barashada iyo aqoonta xirfadaha farsamada gacanta wax soo saarkii dugsigu lahaa oo muujinaysa markaa xirfadii halkan ardaydu ku barteen oo loo inoo tusiyay markaa qaab aragtiya ama muuqaal ah aynu arkayna markaa waxay qabteen oo la taaban karayo waana ujeedada guud ee laga leeyahay markaa barashada xirfadda waxaan doonayaa arday ama qof muwaadin ah oo intuu wax barto wax soo saara deetana wixiisii laga faa'iideysto oo ka faa'iideystaan haddii si guud bulshada uga faa'iideysanayso iyo haddii si gaara markaa qof looga faa'iideysanayo wax bulshada wax kusoo kordhiya marka halkan waxaa lagu soo bandhigay markaa dharkii waa lagu soo bandhigay biyihii iyo qaabka loo sameynayay plumbingkii waa lagu soo bandhigay lightkii iyo electricitygii oo xirfado casriya baa layna tusay waxaan u baahanay dugsigan farsamada gacanta iyo dugsiyada kale Jamhuuriyadda Somaliland ku yaala ee farsamada gacantu inaanu ka qabaylno markaa baahida dadka dibadda inooga imanaya hadday yihiin markaa dad ajnabi ah iyo hadday yihiin markaa dad kale oo halkan usoo shaqo tegayo u baahan markaa inay dadka halkan jooga u shaqeeyaan inaynu kaga maaranayn u baahannahay farsamada gacanta xukuumadda hogaamiye mudane Muuse Bixi Cabdi iyo qorshaha 5 sano wasaaradda waxbarashadaba
mudnaanta koowaad bay ka jirtaa sababta mudnaanta loo siinayo waxa weeye xirfadu qofku markuu xirfad barto noloshiisa iyo naftiisa markaa uu kafeynaya qarankana cashuur buu ku soo celinayaa dadkana waxbuu markaa taraya waxaana madashaasi lagu soo bandhigay agab iyo wax soo saar ka turjumaya farshaxankii iyo aqoontii sarreysa ee barteen ardaydii kala